Professor reer galbeedku muhiimad intee leeg ayay u leedahay Ukraine maxay ka rabaan mar haddii ay midowga Yurub doonayaan inay xulafo la noqoto maxay ka rabaan maxay tahay ujeedadu waxay iyagu ujeeday leeyihiin ma ujeedo u dan ay Ukraine iyagu waxay ku doodayaan waxay leeyihiin waxaan samaynaynaa dimuqraadiyadda ayaan horumarinaynaa ayay leeyihiin laakiin iyagu taa uma jeedaan iyagu waxay rabaan inay meesha ka saaraan ruushku inuu dib dambaysa uga fikiro inuu dib u soo noqdo inuu meesha awoodiisa inuu soo cesho inuu dib uga fikiro hadda kama fikirayo laakiin inuu dib uga fikiro ayay diidayaan waxa kale ay doonayaan nidaamka dhaqaale ee capitalismka loo yaqaano ee midowga Yurub ku dhaqanto waxay leeyihiin wadankani ma joogi doono weligii keligii ma joogi doono nidaam buu qaadan doonaa mar hadduu nidaam qaadan doono waa inuu kiina qaataa noocan Yurub oo dhaqaaluhu isku mid noqdaa sida wadankani aanu noqon wadan kale madax banaana oo khatar idin ku noqdo ruushku idin adeegsadana waa in wadankani ku soo biiraa midowga NATO waa inuu ku soo biiraa oo maxaad uga baahan tahay hub iyo awood annagaba ku ilaalinayna si loo iraahdo marka iyagu taasay doonayaan waxa kale rabaan in uu ruushku cabsi ku noolaado oo yiraahdaan sonaga halkan joogna oo hadday Ukraine qabsadaan gantaalo la soo dhigaya hub la soo dhigaya waxba la soo dhigaya ruushka marka khatar ay ku tahay arinkaas in awood kale iska celisa ruushka halka timaado ay timaado oo agtiisii ka bilaabaan ay doonayaan dagaalka uu ku qaaday ruushku hadda ee Ukraine wax ma u dhimi kartaa sumcadda ruushku uu ku leeyahay caalamka hadday noqoto mid dhaqaale iyo waliba tan awoodda military okay jawaab gaaban maya uma dhimi karo waxaan ugu dhimi karin saddex arrimood dartood uguma dhimi karo number 1 dabeecadda ama behaviorka wadamada loo yaqaano great powerska loo yaqaano ee Mareykanku ka mid yahay dabeecadoodu waa sidan oo kale Mareykanku uu garanaya maanta waxa uu ruushku u dagaalamayo inay tahay wuxuu isaguba u dagaalami lahaa inay tahay uu garanaya marka ruushku waa defensive waxa weeyaan waa difaac ayuu ku jira ruushku gamcuhu ku dagaalamaya wadanka ruushku arinka labaad bal garab dhig wadanka Mareykanka Ciraaq buu weeraray yaa ka qabtay yaa ka hor istaagay uu baabiyay madaxweynaheedii buu dilay wuxuu weeraray maxaa la Liibiya madaxweynaheedii buu dilay saliideedii buu qabsaday Ciraaq saliideedii buu qabsaday Suuriya uu weeraray oo imika qas ku jirta uu ku hubeeyay Daesh iyo jabhada ku hubeeyay waxa weeyaan Falastiin baad arkaysaa sidoo cunaha u hayaad arkaysaa Egypt buu dimuqraadiyadii ka hana qaaday Maxamed Mursi lagu doortay buu majaxaabiyay markaasuu Afgambi Abdel Fattah Sisi oo military uu ku wareejiyay isaga yaa ka daran arinka saddexaad waxa weeye sida maanta uu ruushku u dhaqmayo Mareykanka u dhaqmi jiray Mareykankan sameeyay 13 gobol buu ahaa oo badda Atlantika dhararsan buu ahaa inta maanta uu yahay 5 marka loo qaybiyo qayb buu ahaa inta kale xoog buu ku wada qabsaday Mexico dhul buu ka qabsaday Mexico intay leegtahay labadeed buu ka qabsaday Canada dhul buu ka qabsaday Francisco dhul uu lahaan jiray oo uu gumaysan jiray intuu ka iibsaday ayuu dadkii deganaana xaaqay 2 milyan oo qof ayuu dilay markuu intaa hubiyayna 1823 madaxweynihii Mareykanka ee la oran jiray James Monroe wuxuu soo saaray doctrine loo yaqaano warqad buu qoray uu qoray wadamadii reer galbeedka awoodda weynaa ee ka mid ahayd muxuu ahaayay Ingiriiska oo Faransiiska iyo maxaa la Spain ay ka mid ahayd markaas wuxuu ku yiri maanta waxaan idin sheegayaa in aad ka baxdaan gobolkayga agagaarkiisa inaad ka baxdaan maanta waxaan idinku sheegayaa warqad baa idinku sheegayaa laakiin bari dhow muruq ayaan idinkaga saari doonaa ayuu ku yiri deetana markuu yiri awoodaystay wuxuu sameeyay Canada oo ay gumaysanaysay Faransiiska iyo uu gumaysanayay Spain ay gumaysanaysay xoog buu kaga saaray Cuba xoog buu kaga saaray gobolkiisa dhan uu xoreeyay sababta ugu dagaalamay waxay ahayd wuxuu lahaa wadamadan waa jaarkayga ganacsigaad la qabsanaysaan waxaad ka timaadeen adduunyada dabadeedaad ka timaadeen halkan maxaa idin keenay anaan la ganacsanaya sonkortaad ka qaadatan anaa ka iibsanaya beerahaad la qabstaan warshadaha anaa ka sameynaya aniga jaaral noqonaya aniga ayuu dhulkayga yahay buu leeyahay ruushku talaabadii wuxuu leeyahay ruushkuna adeerow anigana kani waa jaarkayga Ukraine waliba waaba daaradaydii weeyaan waliba marka wuxuu ruushku xasuusanayaa dagaalkii qabaabay adduunka marba waxa dhacday ruushku intuu qaaday gantaalo difaaca uu ku rakibay Cuba waxay jaar la tahay u dhowdahay wadanka Mareykanka uu ka xanaaqay wala hayn kari waayay are you crazy Russia Soviet Union ma waxa doonayay in dagaal foodays darno ka yeeli bay adar meesha ka rar buu ku yiri hadii kale wallahi adduunyadu way qarxaysaa way ololeysaa deetana ruushku wuxuu ku yiri heshiis baa lagu gaaray Cuba way ka cabsanaysaa hubka waan ka qaadaya laakiin ha weerarin ma weeraraya buu yiri laakiin iyo wadankan jaarkayga ma aragtay
immediately you have to leave, you have to get out, waa inaad ka baxdaa. Maraykanku uu garanayaa wixii uu samayn jiray iyo uu samayn jiray, ruushku wax ka yar ayuu maanta samaynayaa.